ورحمة الله وبركاته. عيارتا الصومالية ملك استوى الدنيا إي عالم كما أتكتبتان ولكن مسكين كان لي عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي وإني كالسلام يا مقالة كولومبوس طبعا عصر شهادة لقدوسيي ولا شرفي الله شرفه سنو شرفين هاي وحوي قبل الصوماليات جيبوتي ولاتاي لكن الصوماليات ده يا وقراتاي وكشرفتاي وحقبت كيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسحسح ميديا جروب وعاودين إذا كان يكسر تشيلينسا شاكو أما ور كي هو كدوان كاسو ماستر داب عصر وأوجيدين هاوشي وقبتي ولبدي ويكن إمك لبدي شير ويكن ويكي كوري يعني أما ويكي ده وحصلها ونادو دور عشان بديه كان مانتو بلا مثلا كان بلا كان هاي سكتير أدو لكن ده ويكي هرم بهاش لكن ما معنيه ودن بي واحد في عم بقبتي مركز واحد في عن قبطورت ولا شرفان أديات Soomaalida markasta waxay jeceshahay itus oo taabsi wixii markii weyn degdeg ma wax marka arkaan ayay yiraahdaan waxa soo fiican yahay laakiin maanta dad amaanayso lagu dhinac maraya ay waxa weeye master dabcasar Cabdiraxmaan Xaaji dabcasar wuxuu dhahay sheekh dabcasar xaajina waa yahay ها ولا حاجنا وياه أي ما محملين يمكن ما محملين يمكن حاج طبعا سنو أبيه سماويس ولا حاج وحاس لكن إسق والشيخ طبعا سر إسق وفاهم سنة والشيخ طبعا سر حاج طبعا سر هاي مركا ونكا سؤال في عنبو قبتي حوشي في عناد وقبتي مركز تا مراعدها عندها ضدك عافماتك قباوي كو أركان هاي ضدك نادي قف مال iska fadhiya anaga horgeynayna waa kan waxan baa fiican dabcasar waa kan anaga idin wadna hawsha dabcasar hawsha uu qabtay kadib inan baa sharaftay inan baa maxay hadiyadu juhdi iyo dhaqaale gelisay inan baa wax diyaarisay hadiyad bay u diyaarisay hadiyadii ay u diyaarisay ay u keentay hadaba hadda dadka qaar baa oranaya toloma lacag baa hadiyadaas waa maxay noqon kartaa bal hadaba indina ku arkaysaan baadiyada hadii loo keeno in yar dalkaasi Mareykanka halkaani waa wadada ugu mashquulsan magaalada Ohio degmada Columbus gobolkaasi Ohio gabadhan Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Djibouti oo aad iyo aad u qiiraysan ayaa waxa ay go'aan ku gaartay inay shahaado sharaf heer caalami ah oo la siiyo haliyada caalamka shahaadada ugu qaalisan caalamka inay guddoonsiiso maskiinka alle waa walaalkeed maskiinka alle horta inta waxa ku fiicnaad inaan u dhaahdo ku fiicnaad maadaama xaaji dabcasar aan maanta halka ka hadlay inta aan ahayd waan raahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan idinku haynaa war cusub oo hadda dabka laga soo qaaday hadda soo dhacay Cabdiraxmaan Xaaji dabcasar oo lagu guddoonsiiyay shahaado sharaf cariga Mareykanka shahaadadaas ay guddoonsatay gabadh Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka Djibouti gabadhaas oo iyadu isxilqaantay guddoonsisay hadiyadii intaas hadda ana dabcasar u dhahay dabcasar waa sharfan tahay qofku yiraahdo weyday ana mobilka ku qaban lahaa ku oran lahaa balse laakiin meesha maan joogin bin Abdullah bin Haji wala shay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay وحي الرسول كأنه عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله وكان تذكره واد ما صلتها هي الله كما ما نقين أنا وحما مقبا وحواجب أيام قبتي لكن هذا إلا سدي رجل يوم محما إنك استوى الله هي سدي الله يري لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أبال يا ما نق منا إنك بربنا إنما ندعمكم لوجه الله الله درت اسمه وحقودنا حقبنا وهضلينا الله درتيس لا لغيره استصص اسم غشين يا لغاشة من مان لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا برنامجكي هي شهادة العالمية هل هي عالم كمصير أيان قد بينا أنا قد بينا حويه استصنموا وحبا وضع وحبا قبان وحان قبتين وحان قبتين السماء أركو أنا كان رح قال هذه اسمها كتاهي waxa uu qabto ma qabsoomeen qofku wax markii Ilaahay ma xadar Ilaahay u wadin meel ma gaarayo marka istuusan inay ahayn oo si xaq ah
oo cadaalad ku jirto wax u qabtay waa ka maalin gudid baa loo dhameeyay dad badan horta waxa weeye istusnimadu qof wuxuu iska jecel inuu iska hadlo haduu doono laakiin wax qabad inuu dhigo oo meesha keen horta ma jecla dabcan hadduu istusnimo meesha u keenay lacagtan haddii marka hore 10kan kun baan haya anaa bixinaya gabadha anaa meel geenaya haddii la keen ya keen ama ina mari soo ma bixiya lacagta وديار والله ها taas waxa keenaysa inaanay maxay hayday wali gaarigiis intuu aaday uu ka soo saaray ka soo saaray mid baa wali lacagta meesha ka warsanaya laga qaadanaya marka sida ka baxadoon iyo xasid dadka qaar marka waxa weey hortay taas waxa istusnaa meesha kuma jirin la dartibuuqa wuxuu ku qabanayay gabadh Soomaaliyeed baa caawinayay sidii baa gabdhihiina ku sharfeen waxaan leenahay kuwa badanna dabcan kuwa badan baa soo socdaan kuwa badan soo socda degdegin قرب ما هذه هدية أو شان ماشي كوت taasna waxa weeye mid oo maxay ahaydey adigu xaq u yeelatay lagugu sharfay adu aad naga keensatay maadaama aanu Soomaali nahay adaa naga keensaday anagu dabacsan hadaan ku dhownahay maanta waa ku sharfi lahayd waa ku soo dhaweynahay waxaad naga mudan tahay baanu anagu meesha la iman lahayd marka gabadhaas horta ma sha Allah talaabadii ugu horeysay bay qaaday talaabo aad wanaagsan way qaaday oo ku dadashay dadka xunna waxaan leenahay isagaajiya oo gabadhaas oo kale noqdo يا سلام يا سلام شهاده شرف ومدها هديه عالم كلا سيو ما شاء الله sidoo kale ayay walaashay miskiinka alle ay gudonsay ma sha Allah qalabkan ma sha Allah aadka aan ugu ciil qabay oo hadba gaariyaan soo galay oo electronic oo midka hadii ay gudbaayo lagu charge garayso qaraxay bacda baa soo baxay ما شاء الله بتري مثل وش ومثل محلها باور بنك ميلها باور بنك ميلها ومثل بتري بورتبل تشارجر وتشارجر او لقادم كلام ما شاء الله قلب كان قبضها سميسي عذر كان قروحه بدن ما شاء الله يولي شاطيه لبدا شاطي عالمي ما شاء الله يصلنا قروحه بدن ما شاء الله عذر كاس ما شاء كان ناسبي كان ناسبي كنا عذر كنا هذا كل سمية ما شاء الله سمية ما شاء الله ولا ما شاء الله بالناشق بالبزنس كعد سمية سديو عذرنا قعدت كل سمية ما شاء الله كنا حلو شهادة كربية hortay wax weey gabadhan wax ay soo iibisay xataa ma gacanteeda ugu samaysay badankeeda alaabta way soo iibisay way jiraan fikirkeeda ay gelisay oo maxay ahayd markii fikirkeeda wixii ay fikirkeeda gelisay walaalkeed inay ay u geysay hadana jeclaatay ma sha Allah shanada shanada shanadu waa horta dhirka qof kaligiis ku yahay waxyaabo badan buu u baahan yahay intaas hadan waa qof meel walba meel socdo oo intaas oo meel u kala jeebka gashan laan jeebka iyo baabuurka dhexdiisa way dhigtaa horta gabadhan waxay reebatay horta ma jiro waayo maskaxdu way tuujisay qalab bay soo sameysay waqti bay gelisay lacagna way gelisay wax ay martaa intii ay qaban kartay way qabatay waxa jiro hanti jawaano lacag meel la fadhiyo laakiin aan waxba maartay waxba way jiraan marka wal dabacsan inta horta waa gudoomay haye maxaa u dambeeya oo la soo dawday ما شاء الله ولا شيء هذه لا يكون معي فوزية ما شاء الله كان عالمية كتير ما شاء الله أنا فرطة صغيرة ما شاء الله ما شاء الله كان كاس عالمية أيام كتير صغيرة عن الصبح وكان صغيرة محبي يلا ما شاء الله because of you this world is nice place أديك أيو تذكر كل متكو هاليدا أو تشوغا أو كنول أو إلهي أبوري الدنيا دوا مال قروح بدن thank you very much ما شاء الله مودينا ميشة إن درهم يدينار لكن وحويان كان وحي كقيمة بانتهاي بقول مليون أو دولار كاسي مريكن كا شهادة لما يهمت you are a hero you saved a child's life you're a good citizen for helping our community may Allah protect you your family and all of the Muslims wherever they are. May peace be with you. We love you. MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much. حقيقة إلينا يا يوسف استعتي مسكين كلام أو إلينا كسر استعتي آد بردين على هاي ولا هيك الصوماليين إيموشي تاجر هذا أنا وحك إلا marka qofku wax wanaagsan uu qabto ee wixii si wanaagsan la arko loogu mahadnaqo
lagu arko in wax fiican sameeyaan dad fiican meeshii maadaama isa soo dhibaan waqti soo geliyaan hor yimaadaan wixii aad noo qabatay waad ku mahadsan tahay hortay qofkaas wuxuu dareemayaa farxad wuxuu xaq u lahaa inuu qabto qof kasta oo Soomaaliya xaq u lahaa inuu waxyaabahan kale qabto waxyaabahan kale inuu qabto waxa loo qaban karayo maad oo wanaagsan inuu ku soo kordhiyo dadkiisa wixii aad xaq u lahayd hadii lagu lahaa waliba waad mahadsan tahay oo lagu sii maadaalay waxa ay samaysay waad mahadsan tahay hadda waxa uu xaq u lahayd waxa uu leeyahay shaqada qabsatay ayaa dara lagu sii maadaalay wax badan baad dareemaysaa taas marka xaajigu ولا إلمي والله ديري جرين تسولي وحوي وديري جرين بل هذا هذا فيديو ونقول ديرانا يا حوجا ما نكسر عنه والله يا جماعة يستوصص لكن إلهي وحن كبرية إنه الذنب جي يقدقه ولا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ولا شيء في ورها شرفت بدر سجله وأن كان بدمية هاي 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 ما شاء الله مركب حليض هاي فرينتا أدرس وحولي هاي دمر النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال مركب دمركو يرقوا إسحاق سدا قولي يا دير كيد هذا أي كل هاي قبضة صومالي هاي qofka anta ku furan mooyaane ma furmayso sida isku xirxiran tahay ee isku tahay ammaankiyo kala ka dhigay inay dadku isku xirnaadaan isku dugnaadaan marka Soomaaliyeed isku dubnaad leedahay isku qoyska Soomaaliyeed isku dubnaad leedahay community Soomaaliyeed oo dhan sax isku dubnaad leedahay sax ما شاء الله ولا شيء وشهادتي يقدوسي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين شهادتي ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله وحفي عن بي قبطي والله قبطي قبداسو وحرقه هذا إن بدن laga yaabaa in sanado ku qaadato in ku qaadan laba cisha iyada kuma yaqaadan markuu iska cadaab wanaagsan horta waxa weeye qofka marka hadaad qofka waxa imika ii dhow aan la jeclaado hadaa waxa la jeclaado qofkaas waxa ii dhow ugu dhow marka aan hayo aan u geeyo say doona haw yaraadaan qofka markaas wax weyn bay isaga agtiisa aad iyo aad ka tahay anigana sheekh sahanteeda wax fiican hadaa marka waxa ka sii fiican aan hayana meesha waa geyn lahaa marka horta gabadhaas ma sha Allah wax fiican bay samaysay dad badan bay indhahooda tustay wanaag waxa uu yahay oo iyagoo wax kasta haya hadalka wanaagsan xataa waa sadaqa meesha qura iman lahayd waxba aanay keen lahayn laakiin soo salaami lahayd oo adiga soo salaami waxaan ku faraxsanahay wixii aad samaysay kaaga mid celinayna kaliya ay soo dhiilayd xitaa waxba taa ku dheeda juhdi baayido hortay Cabdiraxmaan aad buu qasli caawo قسم يا فرحة فرحة انت وجهي لا هاي دريمياس ليه بسم الله وهن يا فرحة يا قسم انت بقى عاو ما شو كارنا marka waxa keenaysa waa wax aan filaneyn dee Soomaalidu ka dhashayo Soomaalidu waa ma soo dadka lacagta lahaa iska hay lahaa iska waxa xoolaha marka aan ku socono ما شاء الله هذه جدار ولا شيء ما شاء الله فوسية ما شاء الله فوسية آدي يد حقيقة أمها صنت إلهي سبحانه وتعالى هكا أجر سيو يعني سيد يقرب استارتي أو شهادة داس يهدي داس قالقة عالمية وهذا جدار أنت الله دري وقيس كان الله دري وقمر واحد لما النساء شقائق الرجال لا شيء maxay tahay fariinta aad Soomaali weyn u diraysid gabar kale oo Soomaaliyeed ayaan halkan kaga duubaynay inay baacdi waxaan la kulmay gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Umar wuxuu sheegay inuu xaadiray maxkamadda inuu tagay gabar madow inay hirtay inay ka qaadato caruurta oo ay dabagalay ku daba jirtay si kastaba ahaatee waxaa la raadinayaa hal qoys oo ilmahaas soo qaata gabadhaana insha Allah waxaan ka shaqeynaynaa sidaan ugu soo celinahay insha Allah ta'ala halka aan qoon horta waxa jira iidow hal qoys oo ilmaha yar maanta mas'uul ka noqdo ay la doonayaa baa lagu leeyahay maxaa qoys boqol baa la helayaa dadka ugu badan ee Soomaalida baan ku tirnaa maadaama wadanka ugu weyn adduunka uu yahay adduunka ee qaxoonta ku nool yahay ama
أو نقول كرادي ها ده ولا ميل سود دتك إنه سود تجي لكن ولا سود كالوري هذا Soomaalidu xamalna Soomaalida ugu badan inay diganta wadankaas sax weey waayo marka waa in meesha iskeentaan intaas waxa la eegayaa qofka waraaqiisa la eegayaa dambigiisa la eegayaa waxba la baaraya ilaa halku ku nool yahay sida xaalku ku yahay guriga ku nool soo baaraya in ilmu ku noolaan karo inuu dawladda wax dambiga ka galay booliska la soo waxyaabo badan soo baaray laakiin waan hubaa in Soomaalida badankeedu ay nadiif tahay ha tagaan warqadaha dhiibtaan ha codsadaan wax xaq oo dawladda u leeyihiin weeyaan hadii gabadha ilmaha loo soo celin kari waayo hadii loo soo celin kari waayo midda kale waxa jirta hadii inta dacwadu socoto qudheeda inay ilmihi xaga lagu haysto soo fududeeyaan inay soo fududeeyaan gabadhan marmar ay tusi karaan halka imka lagu keenayo loo saac baa loo ogolay waliba dal aan gurigii lagu keenay guriga ma lagu keeno meelaha dawladda ayaa lagu keenay amaan ahaan loo marka Soomaaliya isqanjiriya caadi iska dhiga wiilkeeda insha Allah ta'ala walaashay maxaad fariin u diraysaa madaxda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed qurba joogta gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo dayacan Soomaali weyn Fawziya Ahmed Djibouti ka soo jeeda ma sha Allah Soomaali weyn Djibouti maxaad leedahay walaal wada adkeeda yara gaaban waxaan leeyahay marka Soomaalidu inay isku xidhnaadaan isku duubanaadaan isku xidhnaadaan inay gacmooda jirba wax ku qasbadaan inay isku xidhnaadaan meel kasta ay joogaan ay community noqdaan adduunka meel kasta Soomaalidu way ku dayacan tahay dhulkeeni meel kasta adduunka ka noqoto dad islaam ay Soomaalidu leedahay madaxweynayaasha haysta ee taliya laakiin hooyada siyaasadda miyihi laakiin tan waxay iga keentay dadkeenu meesha ku daacay yihiin iyo madaxweynayaashu sida ay u tartamayaan kursi ay dhibta Soomaalida meel kastiba horta gabadha waxa weeye muhiimada ay ka hadlaysaa waxa weeye hortay in gacmooda tirba wax ku gooyaan meel kasta oo Soomaali ay joogto waa inay gacmaha is qabsadaan waa inay istaageeraan waa inay wada socdaan waa inay iska warhayaan waa inay isdareemaan halka qaar xun ay gaalada ku sii dacweynayaan qofka walaalkiisa martaas laakiin waxa ma Soomaali sax ma aha waa Soomaali waa yahay laakiin aqliga dhinaca kale ka galay ma garatay marka kuwaasna hadii waxaan leeyahay loo halis kaga baxay hadii laga bato oo qof iyo laba iyo saddex ay noqdaan wax dacwaduna waxa ma qabanayso ayagana waxa ka ma qaban karayaan laakiin markii tafaraaruq uu jiro umad istahaysataa yahay wax kasta bay soo gali karayaan si kasta looga faa'iideysan karayaan marka dadka qurbaha joogo oo Soomaalida si gabadhan baa wada dhameysaba inay gacmaha is qabsadaan inay wax kasta ay walaaloobaan dadka markay wax qabsaan baartu wax meel kan la ay qaban karaan wax kan la ay qaban karaan marka horta ilo fiidiyogu oo aad u dheer yahay gabadhan in badan wax ka hashay dabcan sarna oo in badan wax ka hadlay xaajigu waxa weeye gabadhan horta iyada qudheed waxa weeye waxaan leenahay walaalo waad mahadsan tahay huuno waad mahadsan tahay 100% abaayo mahadsan tahay baayo waa mahadsan tahay waxaan leenahay gabadhaas waxay int ficilka ay samaysay in badan oo Soomaaliya laga arko in badan Soomaaliya laga arko ayaan jecelahay kulli waxaan filay wax kasta oo wax qabta siyaasiyiinta waa ku yaadaan marka ay wala taagay sacab oo tuntaan wada aragtaa wali hal siyaasi haduu yimaado magaalo wax alla wixii hadii aaga joogo oo soo ordayaan wax faa'iido ninka wadana ma jiro aanu qasaare ka ahayn marka kaas waa loo kacaya laakiin kan ka wanaagsan waa akhriya adduunka wax ku qabanayo inaad loo kacayo insha Allah marka waxba barnaamijku aad u dheer yahay waxba ku sii fogaanmayno intaan barnaamijkan iyo barnaamijka kale oo la mid ah aynu ku kulmi doono insha Allah waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh